بسم الله الرحمن الرحيم وسوريسينا عاديها wax emergency iyo wax talo maxaa dhacay saacada kulana ma jiro waa nabad dalku guud ahaan waa nabad gobolada dhan aad iyo aad baa dalku wanaagsan yahay sanadkan waa sanad barwaaqo dabcan dal dhan iyo gobol iyo degmo iyo xaafad iyo qoys maalin aruba dhibaato ma la xalilaa daas qabsada ha noqoto waxa qaldamay ha noqoto dalku uu shaqeynaya waroortii la soo toosan hawl ma jirta tu nabadeed tu wax booliis baynu u leenahay barasaab baynu u leenahay wasiiraa loo leeyahay culimaa loo leeyahay uqaal saxaafad aroortii markii soo hawl walba fogay laakiin waa hawl nabadeed oo ku wanaagsannahay taasi nabadda iyo wada shaqeynta iyo isku kalsoonida dalka ka socota ee dhammaan aynu qarnimada u adeegayno waa tamuujinaysa miraheedii biloway yihiin ee dalka lagu soo dhiiranayo maalgashi qaar hawshooda bilaabtay qaar badan oo aynu wari ku jira hadallo ku socda dalka wax qabsanaya baac mushtar beero arday shaqaale wanaag shaqeynaya marka dalku nabad qaba guud ahaan caalamka xiriirka uu leeyahay waa Korea waa fiicay nabadda iyo shaqada gudaheenu markay wanaagsanaataa caalamka xiriirkiisuna uu sii koraya inaguna caalamka isbedeladiisa siyaasadeed ee ka jira geeska Afrika iyo duruufahaba danteena waa ka dhex hawlgelayna dal waliba wuxuu shaqaystaa danta dadkiisa yoolka uu leeyahay waxa weeye horumarinta dadkiisa ee dalkiisa saaxiibtinimada mar walba taasay ku xirantay marka inagu xaalad isbedelayna yoolkeenu waa muuqda qarannimada Soomaaliland iyo horumarkeena duruufo kastoo dhex jira yoolkeena kaasir ku dhex saarayna hordhaca kadib dhowr qodob baan ka hadlay taween waa doorashadii 2019 xagee maraysa laba ero maalmahan suuqa aad ugu badana mid waxa weeye shirbeelaadyo xagee xisbiyada ka yimid ta kale waxa iyana waxooga cabashooyin badan ka jiraan deeq waxbarasho oo dalka jaarka aanu ka helay oo iyana aad midiyaha waliba gudoomiyaasha xisbiyaasha soo qaadeen in uu jiro qaladaad iyo sadursiyo doorashadii 2019 March anigu halka wax marayaan baarin warramay deetradii ka go'aamin ma qabsoomaysa mise qabsoomayso idinka la karaba doorashadii 2019 saa u qabsoonto oo maxkamadda sare iyo labada aqalba gudoomiyay in bisha la qabto xeer adaga waxay u baahan tahay doorasho in la qabto sideedaba waa argano aragna 10 bilood in loo diyaar garoobo 10 bilood bay doorasho waliba u baahan tahay in loo diyaar garoobo doorashada markii aanu ka soo baxnay xukuumadda dhisnay sida caadiga ah doorasho walba waxay leedahay waxay dibteeda ay tahay markaan hore looga baxo si hore loogu socdo wala bilaabay commissionku waxay soo kaayeen xisaabta waxaana soo hordhigeen barnaamijkii doorashada lagu gal lahaa 10 bilood iyo maalin iyo bil iyo week walba wax la qabanayo saddex arrimood ayaana ugu cuslaa in laga wada hadlo oo la hirgeliyo mid waxay ahayd laba doorasho oo isa saaran isku sidkan oo isku soo beegmay oo tii dawladda hoose iyo tii baarlamaanka oo mid waliba sharci gaar ah hore u lahayd in labadooda sharci la iswaafajiyo oo mid la iskaga dhigo si aan kodba maarta sharci dhan loogu durin in la mideeyo laba kalabaadna wuxuu ahaa deeq lacagtii iyo xoolihii lagu dhisi lahaa doorashada lagu qaban lahaa in la keeno saddex in xisbiyada qaranka saddexda xisbi doorashada iyagaa soo galay wixii qaldamay iyo wixii saxmanay iyagaa laga doonayaa inay ku soo ururiyaan commissionka oo ay keenaan soo jeedin ah halkaana waynu ka qaldanay aan ka baydno halkaasina way ficnada aan sii xoojin dabeetana soo jeedinta xisbiyada wixii qaladaad si loo saxayo lagu daro sharciyada iyo barnaamijka dambe saddexda qodob baa waajibaadkii meesha lahaa ta qorshaha iyo xeer isku duwidda waxaa loo xil saaray xukuumadda waxaana yidhaah lagu soo ururiyo commissionka ta lacagta
waxaa loo xilsaaray loo qaybiyey qolooyinka doorashada naga caawisa iyo xukuumadda xisbiyadana waxaa loo diray inay soo riboorkii keenaan wixii qaldamay wixii la sixraa muddana waxaa la qabtay inay intaas ku dhammaato juun intiina soo dhaaftay markii shirkaa lagu kala tegey maarij wixii ka dambeeyey xisbiga waddani qaraar buu soo saaray oo uu leeyahay la shaqayn mayno komishankaa jooga iyagoo la kala diro mooyaane sababtoo ah doorashadii hore ee madaxweynaha ayaanu wax ka tirsanaa inay wax qaldeen muddoba 4 ilaa 5 shir baan wada yeelanay waddani iyo xisbi kale oo cidba 2 shiroo gaarna waxaanu yeelanay 3 shiroo gaarna waxaan wadno iyo anigu waxaan wada yeelanay waddani arrintaa komishanka la shaqayn mayno waxaanu ka doodnay war dee taasi waa dib u noqosho oo waxa weeye waddani doorashadii ma ogoli haddaad tidhaahdo komishankii maanta kuma kalsoonaya shaqayn maayo waxa weeye arrintaa bal arrin kale ha lagu noqo waxaanu dib u baarnay clipkii markii uu gudoomiye cabdiraxmaan uu yidhi waan talaasulo doorashada galay clipkii uu ka akhriyay baanu dib u doonnay deetana isagii baanu isla nimid waxaan waryaahe dee arrintu iminka maahe maalintaaba waxaad ku dhawaaqday maad golan doorashada clipkaaga haddii la eego taageerayaashaadii umaad sheegin in doorashada la helaye bal baad ku qabatay meel dhexaad ugu qabatay clipkiisi waa eegi doontaa wuxuu ku bilaabay umaan tanaasulin doorasho gacan ku rabisa umaan tanaasulin guddoomiyaha xisbiga kulmiye umaan tanaasulin xisbiga kulmiye laakiin waxaan u tanaasulay danta qaranka iyo nabaddiisa iyo dalka horumarkiisa waa 2 sentence waa 2 weedho Soomaaliga ka adeegto weedha hore waxay deedifaysay inuu u tanaasulay xisbiga ay tirtabaya oo haddii xisbiga aanu xisbiga u tanaasulay sida caalamiga ah yuu u tanaasulay waxay caddaysay inaanu u tanaasulay murashax ay tirtabaya marka haddaanay labadii murashax isu tanaasulinna tanaasulma dhicin 3 muu fasixin doorashada muu odhan doorashadaasi saa laga helay baan ku aqbalay waan ku hanay wuxuu waa uma tanaasulin doorasho gacan ku rimisa shaki buu galay doorashada marka kelmadii waxay tahay weedhi marka baragraafkii uu yiri la akhriyo dib loo akhriyo waan tanaasulay hablo wala tahab si waxbana hasiin taas maxay abuurtay dadkii labadiis baragraaf irayni baa laba dhinac loo akhriyo hadda dadku weynaha aan kamid ahay waxaan u qaaday inuu tanaasulay oo baragraafka daba nabad baan u qaaday laakiin taageerayaashiis waxay qaateen sentence hore doorashada gacan ku rimisa ma aqbalayno maxaan u aqbalnaa doorasho beena dadku markaa hadday xanaaqaan dadka taageerayaasha wadani ilaa maanta hadday caroodaan oo furka tuuraan la yaab male waayo guddoomiyaha ay doorteen ee 40% codka la siiyey mu odhanin doorasho waxba laga helo walaal aan degno wuxuu u markhaati furaa gacan ku rimisa markaa babliga caadi la yaab male hadduu caroodo wuxuu uma tanaasulin xisbiga aan tartabaynay taageerayaashiis maxay ugu tanaasuliyeen markaa xisbiga haddaba isagii leeyahay uma tanaasulin wuxuu leeyahay murashax uma tanaasulin oo taageerayaashii markaa maxaa laga sugaya halka horta wax ka xoolayna talaga jiitamay halkaas ay noqotay markii aanu dooda ka waxaan ku hadaba waayay hadaba markii doorashada tanaasulisay wadaniyo waxaad xaq u lahayd xaq u leedahay inaad maxkamad geysaabe doorashada oo garku ku doo baxdo maad geeno oo sheegtay maantana sharci waa ku furay saaynu hore u socono hadday kula tahay inay qolada commissionku ay wax masuumaasqana doorashada hore aad hibanayso dee xaq baad u leedahay maxkamadda gee ilaa anigu sax baan u arka goob joogayaal baa joogay sax baan u arkay caalami ahaayeen sax baan u arkay loo kale baa sax baan u arkay haddaba dee dadkii ku hayrmayno kala qaybin labadii xisbi ugu waaweynaa wax kala hareen dee maxkamad gee baasha commissionka dib baa loo tiriyay haddii la doonayo doorashada laakiin dadkii aanu ka saarno shakiga tafarruq maxkamaddu waa diiday taasi halkaas isku taagtay waxaa hubaala xisbiga waddani taageerayaashiisa waa ixtiraamayna waa muwaadiniin xariira kuwa kalun bay la mid yihiin tartanka nin walba xisbigu taageeraya iyo qof waxaana sharcigu kolka laga helo
qofka liidarka ayaa dadkii qalceynayaan waa la inaga helay oo loo kala hagaago laakiin hadduu liidarkii meel dhaxal ku hayo dee shacabkiina waxba sii dayn kari maayo waana jiita ka dheere inala socda ee xanaftii doorashada ee halkaas ka socota iminkana waxaan leeyahay gudoomiyaha xisbiga wadani iyo xisbiga waxa haddii ay nag wax ka sheegteen maxkamadda u bannaan haddiise ay dhahdaan la shaqayn mayno dee anugu keliga tartan geli maayo xisbiga 40% helay ciro waa qof laakiin waxaanu ixtiraaminaa codkii iyo xisbigii iyo taageerayaashii wadani ha isku noqdaan ama maxkamadaha geeyaan ama commissionku waqti buu leeyahy anu ma kala eri kara imika commissionka cabdiraxmaan ciro wuu ogyahay sida loo eriyo commissionka waa waddada ugu adag baarlamaanka ayaa ka adag commissionka waxa leeyahay marka la kala diraayo waa la soo dacweynaya horta iyagoo dhan ma laba kala diri kara waa isku dhan sharciga sida la siiyey mid baa loo eri karaa xeerkooda midka qofka waa la soo eedeynaya guddi baa loo saaraya hadday guddi isku raacdo madaxweyne talaabo ma qaadi karo baarlamaanku gudbinaya cod baa loo qaadaya maaha arrin guddiga la saaraya iyo aniga oo guddi leeyahay saar waa inaan ku qancaa waxa lagu soo dacweeyey iyo public kale dhibaatooyinka ka furan mid baan dacwo marka toddobaad mid ma gaarkiisa loo dacweynaya mar qura waraaq loo diri karo mid walba goonid saa loogu ansixinaya baarlamaanka in la eriyo cabdiraxmaan waa oy isaga qora sharciga kala eri ma kala eri kale waa ogti distoorkana ka baaraysa taasi halkaas istaagtay markaa doorashadii halkaas baa ku jira halkaa kaga jira laba tii ahayd inay xisbiyadu soo qoraan wixii xumaaday wixii kale lagu daro waanu si nimid xisbiga wadani wuu diiday inuu asalba arrintaa ka hadlo oo uu la shaqeeyo uu wax qoro xataa inuu fariisto qoro wixii qaldamay uu gaar ugu geeyey isaguna waxaasaan isku haystaa ma qorin ucid iyo kulmiya way qoreen ururada bulshada waa lagu daray culimo cid kasta oo sidii dee marka la abuuray sharci labadaya cid walba la soo mariyey waa la ii keenay golaha wasiiradan soo dhigay waa la ansixiyey baarlamaanka la taala iyo wixii sharci qaban lahaa laga doonayo ku xidhaa doorashada baarlamaankan u gudbin waxaa ka mid a haweenka waxaa ka mid a reeraha gabowyaha wixii laga yeeli lahaa waa xeer baarlamaanka hor yaalo loo baahay inuu baarlamaanka horgeliyo saami qaybsiga baarlamaankaa leh sharciya iyagaa sharciga dejiya waa golahoodii iyagaa waaye araga iyaga looga fadhiya taasina halkaasay taallaa waxaa maqan qaybtii wadani tii dhaqaalaha 16 milyan baa la yidhi doolar ayaa loo baahayay in doorashada gasho 4 baa xukuumadda waa bixiso labaha soo hormariso labana markay dhexda marisaa bixiso inta kalena waxaa bixinaya deeq bixiyaasha labadii annaga march baa laga shubay labadii milyan waxaan ahayd lagu bilaabo kaar bixintii bedelaada labada kalena waxa laga rabay September haddii la qabanayana waa iga diyaar maxaa dhacay marka deeq bixiyaashu waxay dhahdeen xisbiyadu ma heshiiyeen maya in badan bay noo yimaadeen mid walba doodiisa akhriyeen way istaageen xisbiyadii anaaba ku raacsan anaaba doorasho qaban wadano maqan 40% of the nation wadaniyana kalaamo leh dalkoodana hore u dhisaan doonaya xaq bay leeyihiin hadday doorashada xun tahay in la ogaado ay ku qancaan haddii warqalada loo sheegay inay ogaadaan marka waa la sugayaa xisbiga wadani inta uu isagu go'aan gaarayo waxay u daldalan tahay go'aanka wadani ciddii kale waxooda waa dhammaatay tii doorashada halkaas aan dhigay waxaan ka warrami lahaa ta kale waxaa ka dhashay xanafo badan weli dadkii doorashada kala galo aan weli isdhex gelin weli wax kala tirsanaya nina uu qabo inta uu guul xalaala helay in lagu haysto oo leeyahay waxba dhacday oo leeyahay war waxa ma dhacay nadiif baan midna uu leeyahay waa la dhacay har cad baa tuug baata hadda waxba in arrinta lagu daado xal loo helo haddii lagu harsoonaan waayo commissionkii haddii wadan goobjoogayaashii caalamka diideen haddii markii maxkamadda xaq u lahayd maxkamaddii aanay geynin maantana xaq u leeyahay maxkamadda geeyaan waxay maxkamaddu ku saleeyeen laakiin doorashadii la daldalaato qaranka doon maaha baarlamaanka la beddelaa doonaya in badan u fadhiyey haddaan sharcigaa wadan sii deynin dee baarlamaanku sii fadhiyaya ila meesha banaanaan maysteen waana waa muwaadiniinta ragga taageera wadana inay in badan doorasho diyaar u yihiin baarlamaanka haddii baarlamaanku dhowr iyo 10 sano fadhiyeen
وإنه أذنوا لنا هاي ومحافظ إذا تأود حسبي كل شيء إن حسبي بهارك دوّك كحين دورشة حسبي وين خلاف كل حليان ومش جيه وحكى لنا شيء حنا فضلا ومعروبة وح كله جلدان dadka caraysana oo qaba in la dulmiyay oo deena wax badan ay ka tafararuqaan oo hawshii maamulka la sii diraya wixii baa wali la sii caraysanay wax badan ma ka dhacay dalka waxa dawladda ku haysaa khilaafka xisbiyada leaderska waliba rag xisbiyada hogaaminaya qodob kale oo wiigan ugu soo noqday waxa weeye waxa la yiri deeq baa la siiyay waynu qaylinay wali markii hore waxa qayrin jiray ardayga laga taga iyo dadka maartay de maamulka hayaha hoose labadii gudoomiye ee labada xisbiye mucaaradka ka hadlay si xun baa loo qaybiyay gobolada waa loo kala xday qaar baa loo buriyay oo tira inta la siiyay qaar baa la dulmay haddii aanad xumaan doonahayn oo hashu markay waxdiisa maqaarka meel xun bay ka ursahay aanad gudoomiyaashu meel xun aan ka eegayeen oo ay leaderskii qarankan maanta doorashada u galay in madaxweynaha luqdan ay yihiin oo codka inta la dadku soo taagay waayeelka dadku xurmeeyay madaxweynaha gudoomiye xisbiga murashax leh waxay u baahan yihiin inay waxyaalaha fidmada iyo nacda ku dhaxawraya in badan ka wareegistaan iyagu oo mushkilada damiyaan laakiin maaha iyagu inay dadka farsa ugu fiiqaan in balaa jirto waayo ummadii leaderka daba socotay colaad bay qaadanaysaa labada gudoomiye waxay sheegeen in iskoolashkaasi qalad loo qaybiyay wadada buri waxay kari karayeen intaana miidiya la hadal intaana dadka bamshar ku dhex tuurin inay u tagaan wasiirka waxbarashada inay la xisaabtamaan sistamka wax ku qaybiyay inay ogaadaan qaabka wax qaybta la bilaabo saxmata sidii loo qaybiyay saxmata lagu heshiiyey inay odaashtaa huyaan baahay deetana ay case keenaan halkaasay ka qaldantay كدود ما يرون وزير كذا دافع مايه بريتنا حق بقول إنه بعدين ريتها هالكتب وربحنتي يقرأ الكرسم جاي وزارة كصوب حظي هل كانوا يلا قيب سوقات إنه ولا وزير كذا قال كذا دافع ما أحد يرد هذا هو حق رضي قرصة مصور دارين وهي حق بنقول له هو شو ابنه حكيته وحن كدولنا كهذا ما يأمر ساسور على ساسور وحن كدولنا ورقد الرسم جاه أي وزارة وحبرشة وحقوق قيمسي أنا الأسكرية وحي قلدن هل عضبة حلال قشاي أي وزير كي وزارة الدين إنه ورمنا دافعين حتى أنا أقول يريون قيب قاتنا محكمة دا يجينسا ميديا هورتا يكينسا لكن ويالك واحد يرى إنه بصده وركو شيء أنتو لقي يوحو أبوري دونه حتى أنا بريرين في المدرك الحطوم قضبك كأسنا معلمهن صعدا وحوي شربالات labadii gudoomiye labada xisbiye mucaarad wadani iyo oo cidba waxay ku dhawaaqeen in shirbeelad qabanaya boolad kale gali maayo gudoomiye xisbi 40% umadu dooratay bariga galbeed dalka doortay shirbeelad sida ugu dhalanaysa ninka siyaasiga hogaaminta inta la qaldanta umada isla xtaala waxa qurantaana ka taaganahay dadku markay isqabtaan xeerkii kula baxsaa anu waxaan leeyahay shirbeelaad gudoomiye xisbi saddex gudoomiye kamid ah kii ku dhawaaqaba waxa ka dhalanaya dembi sharci ama sharci baa jabay artikalada ama qodobada dastuurku arinta kaga hadlayo waa ka dhalanayana koobi wardiyo sameeyay dastuurka ninka ayana uu hayo soo akhriyo qodobada xusuusiye marka kuwa la soo akhriyo ka doodi doona talo artash beeladiyadu sharciyan halkay taagantay xisbiyada awood siyaasi ah ayaa la siiyay fikradii opinion inay soo jeedaan dastuurku siiyay ummad bay hogaamiyaan loo kulmiye ahaan shirbeelaad xisbiga ku dhawaaqaya manihin ku dhawaaqana waxa leena waa khalad waynu ka gudbinaa marxaladda dastuur baynu ka samaysanaa dadkuna saddex xisbi bay kaga baxay qabyaaladda oo u codeeyeen nin walbana Soomaaliland oo dhan baa u codeysay anigayna waxa boona saxna ma aha in gudoomiye xisbiga shirbeelad uu qabanay laakiin laba gudoomiye isku raacay oo mucaaradka kulmi hawa diidan arinta sharciga ma waafaqsan leh ninka uu waafaqsan tahay akhido saaraarta kala shirbeelad waa dib u noqosho
maanta laguma fadhiyin faaladayda gaarka ah labadaa qodob ee waxbarashada iyo shbeelaadka labada guddoomiye xisbiyaasha way garanayaan waxay dhali karayaan sharcigana cabdiraxmaan cir isagaa bayga badiyo oo 10 sano hor fadhiyay golaha shirka golaha qodob buu dusha uga haya laakiin malaha siyaasaddu bala taraartay maxaa ka dhalanaya codka guddoomiyaasha xisbiyaasha haddaba siyaasiyan inanka jaraa'id wax ku qoran jeed wax ku qoraa professorka analysis bixiya suldaanka hadla ee intaa maalinba TV kale anagoo reebana waxa ismaracaya guddoomiye xisbigu ka culusi cod shacbigu sida codka uu yiraahdo ee dastuurka wax u dhimaaya ee wax abuuraya miisaankeedu ummadda ku dhex tuuraya waxaanu nahay ummadu halgamaysa inaanu qarannimada Soomaaliya xaqiijino oo la ictiraafo dagaal badan baan ku socdo waxaanu u baahanahay faqri iyo shaqo la'aan baan haysa inaanu maalgashi caalamka u yeerano waxaanu u baahanahay inaanu caalamka saaxiibo badan oo ilaah u gala ku yeerano haddii saddex xisbi ay ku kala fogaadaan shirbeelad baa la qabanaya la qaban maayo haddii deeqda yar ee ama waxbarasho ama mucaawino ama horumar shirkad dhexdeena ay xisbiyada waaweyn si aan sharciga waafaqsanayn maslaxaadda ummadda kala diraysa ay u dhawaaqaan saddexdeeda waxaan la hadlayaa guddoomiyaasha xisbiyada ka mid ah anaga dalkii dabaro xumaan u geysanay shacabka taa ka cadhooday gadooday wax sameeya eed male leaders bay kulliyan raacaan marka taageerasha xisbiyadu hadday cadhoodaan hadday qarxaan eed malaha shacab waxaan hubaa nin waloo xisbi taageeraba inuu muwaadin yahay Soomaaliland ku dhaadanaya ku dhimanaya horumarinaya laakiin haddaan anigu taageerashada ku idhaahdo wicdo waxaan ugu sameeyay tolaaye maxaad ka sugaysaa taasina iga waara odayaasha xisbiyada hogaaminayaan la yeeynaa dadka inagu qaska u horseedin shacabka waa mahadnaqaya taageerayaasha oo xisbiyada oo dhan waa mahadnaqaya wixii dhaliila igu soo biira waa ogolahay inaan ka jawaabo xilaan labada kala saareen baa saaran waxaa soo dhaliilay waxa la adigu daweey ayaa la igu dhibaaxi doonaa